madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo maalinkii shalayta ahay howlo shaqo ku soo gaaray magaalada Boorama ee caasimadda gobolka Awdal ayaa waxa uu booqday xafiiska maamulka cusub ee degmada Boorama. Madaxweyne ku-xigeenka oo la hadlayay xildhibaanada golaha deegaanka iyo mas'uuliyiinta dawladda hoose ee degmada Boorama. Gudoomiyaha waxaan ku ballanay saaw sheegay maradu way arkay shaqada uu wanaajiyo waxay degmada kaliya wax ma taraysa isaga siyaasadiisa iyo mustaqbalkiisa dhisa qof walba inaga mid ninku haduu shaarkiisa nadiifsado isaga qurux badnaanaya haduu qof shaarkiisa nadiifsan waayay isaga shaar foor xulo isaga sita qof binaag waxa ninka soo inaga mid masuux loo baahan yahay inuu shaarkiisa nadiifsado hadana qaybta amniga tiin hadaatiin qaybta maamulka waxa qof shaarkiisa nadiifsadana xaga dunya xaga aakhiraba waxa la ajar buu helaya كل الدجاجة واحد اللي هذا كل واحد اللي واسكا آخر السنة كو قبل إن العراقي تلاقي حولي شالين ولا أويا برني ولا أويا بعد مدة كل بقول لك كده بيسوم مال ورا كوي وراه هنام بالعرنا يا ولي الدجاج كو فرب يهو قد ما جوكتان بيا ما بورم جوجا ما برع جوجا ما عرقاوي جوجو ورفرب يهو قد الشقة بقرطه هرت واحد تيوا كو سياسة الدجال بعدين ما تهيدنا دad nin walba ka raaniyo hawl wada fulnay ma tihidna dadkii siyaasadda degmada dejin lahaa wanaageeda dib u dhiskeeda hagaajinteeda qurxinteeda laakiin laguma dooran inaad maalin walba xafiiskaaga dadka dul joogto laguma dooran inaad ninkii inaad yarka feelka cashuur laga qaadi lahaa feelka cashuur laga qaadine oo doorteesi ummadda oo dhaba ku dooratay nin gaar kuma dooran waxda daro ummaddu waxa uu simantahay cashuurta laga qaadana waa simantahay xaq siman beeladay in aqalka madaxweynaha ana maanta ugu sareeya madaxweynaha qarankan hay aqalkayga cashuurtiisa waa la qaban bixiyaan in ka hoos hadii ka sayna inagii maanta dalka qarankan magac ku qaadnay ee nin xil ku helnay ko kula taliyaha qaybta ama sanyar yiraahdo waxaan ahay taliye jeelka iyo xilli weydiinin aniga kana yiraahdo aan xildhibaan baan aqoon la weydiinin oo adaaba dalkii jaaniskiisa helo cashuurtii cunayee ma maskiinka dayaa la qasbi oo albaabka laga saari man shaqaynaysa cashuurta waa in la bixiyaa nin kastoo mas'uula sida ka miskiinka looga qaaday isagana albaabka waa inaad ka furtaan ninka kale mas'uulkaana sababtoo ah cashuurta waa consumerka kii cashuurta cunay ma ku dhaadeen sheekh hebel baan hayo xildhibaan hebel baan hayo war Soomaaliland sax qaran ku noqon mayso hadayna cashuurta bixin tu qaran iyo tu dawlad hoose mid lagu dhismaayo idinka waxa laga baahan yahay sida aad ballan qaaday aad ku hadlaysaa inaad kaga dhabayso oo ummadda waxaad fulinaysaa u dhaxayso wixii khayraad soo kordhaa aad u dhaxayso cashuurta aad qaado dakhliga kordhiso kow marka dakhli kordhiso wax qaban kartaa oo magaalo qurxin kartaa shaqaalaha qurxin kartaa taasi waxay keenaysaa marka in dakhliga aad xoojiso waa kow wax meel kasta wax kaaga maqay ka doon kolkaad ka hesho meel kasta wax kaaga maqan dibadda dadka ay arkaan lacagtii soo gashay halkay gashay oo ummadda u muujisa adduunyada inagu waxaan noqonay mahayna ya bar iska kharibano waa in hilaab xun inuu qarsay waa wada hilaab xun gabiyo nina Soomaaliland ama ma rabtayna xisaab aad dhigta meel wadanka inta leeg kama amaanayo shirkadda ka mid ah shirkadda maanta Soomaaliland la oranayo hadii la maanta xisaabtaada keen shaaba jirto wadanka walaa institution jaamacad la yiraahdo walaa dawlad hoose walaa cid maanta nidaam dhisan oo ma kala weydiiyo xisaabteeda khalad iyo sax خسارية فايدة هل كان دي كرتين إنك بستيد مكيدا شهادة شاملة بجد أحمد عيلتري ريا تي في بورما.